ururkayga waa anaa aayaha u samira u subana u sabiiba u sagaliya qalbuliya sayma soo hillaacdaa sideedii u wacan tahay ummadduba dhammaanteed aday kuu diyaar tahay dalyaqaan siyaasiya nin dalaalay baa tahay maxamedow muftaaxow muuqiisu macnow waxtarkiisu muuqdow kursigaadu halgamaysa allah ayaa kugu simo haku saaro meel sare adigoon isaxaqarin wafdi ballaadhan uu hogaaminayo guddoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo dr maxamed cabdi gaboose oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee somalilan ayaa si mug iyo miisaan leh loogu soo dhoweeyey magaalada burco ee gobolka togdheer kumanaan ka mid a shacabka magaalada burco gaadiid tiro badan oo ay horkacayaan gammaanka farduhu ayaa kaga hortegay deegaanka qoyta oo duleedka waqooyi kaga beegan magaalada burco digtoorka oo sida rajada shacabka ee furista ururada ayaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada iyagoo lagu wareejiyey jidadka iyo shaaricyada burco soo dhoweyntan oo ahayd mid aan loo kala hadhin ayaa xadhigga lagaga jiray xafiiska guud ee ururka barwaaqa ku yeelan doono gobolka togdheer cuqaasha waxgaradka dhallinyarada salaadiinta iyo haweenka soo dhoweeyey wafdigan uu hogaaminayo guddoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo dr maxamed cabdi gaboose ayaa hadallo ka jeediyey madasha soo dhoweynta waxaan ku soo dhaweynaynaa guddoomiyihii urur siyaasadeedka barwaaqo dr maxamed cabdi gaboose simugiyo miisaan leh ayaana kuugu soo dhowaynaynaa waa degmadaadii waa gobolkaagii waa dadkaagii ku soo dhowow guddoomiye dr gaboose siyaasaddu qayb ka mida waa bukootay waa ninkii dawaynayey war sow maaha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaannu soo dhowayno digtoorka madaxweynaha mustaqbalka inshaa allahu ka beddelaya muuse biixi cabdi haddaynu nahay gobolka togdheer innagoo ka wakiila waxgaradkii cuqaashii siyaasiyiintii halkan looma kala hadhin aad iyo aad baannu u soo dhowaynaynaa haddaynu reer barwaaqo nahay waxaynu sidnaa madaxweyne qaran oo la wada leeyahay mid reereed ma sidno mid qoys ma sidno mid qaran baynu sidnaa ninkan waxaa wada ilaahay iyo somalilan ninkan reer ma wado qabiilo ma wado ilaahay iyo waxa wada somalilan wuuna soo baxayaa haddaan nahay haweenka gobolka burco waxaanu soo dhoweynaynaa doctor maxamed cabdi gaboose waxaanu leenahay madaxweynaha mustaqbalka iyo aayaha ee wax qabanaya waa adiga annaguna waxaan nahay haweenkii gobolka burco waxaanaannu ku soo dhowaynaynaa guddoomiyaha xusbiga barwaaqo urur maahe waa xusbi laga bilaabo maanta waxaannu leenahay waa madaxweynaha mustaqbalka ma aha mid qabiil waa mid qaran somalilan oo dhan inshaa allah waxaannu uga baryaynaa inuu noqdo mustaqbalka madaxweynaha anfacayey annagu waxaannu idiin galbinaynaa nin aan laga sheekaynayn dhakhtarkii weynaa baannu wadnaa gobolladii galbeedkaannu ka soconnaa awdal baannu ka soo bilownay gebiley baa ku xigtay hargeysa saaxil maantana albaabkii waxaannu maraynaa maxaanku laha gobolka burco degmadii ugu horraysay waan idiin mahadnaqaynaa aad iyo aad haddii ilaahay idhaahda maanta la codaynayo loo soo dareeray qiimaynaya ururadana inaad sidaa iyo si leegu soo baxdaan baannu idinka doonaynaa aad baad u mahadsantihiin soo dhowayntiinna sharafta leh waa idinka mahadnaqaynaa gacmo furan iyo kalsooni indhaha wax arkayaa way arkayaan inuu ururnimo ka gudbo xisbi u gudbay waxaan soo dhowaynayaa guddoomiyaha xisbiga barwaaqo dr maxamed cabdi gaboose waxaan leeyahay soo dhowow guddoomiye way gaadhay xilligaagii in badan buu hanka siyaasadeed ee dalku ku hayey waxaannu idiin wadnaa madaxweyne caafimaad qaba oo ciil ka caafimaad qaba oo aargoosi ka caafimaad qaba waad wada noolaan karaysaan hadduu madaxweyne noqdo waad arkaysaan togdheer siday u soo baxday dabkii baxayaa dab lagu qabtaa waxaan idin leeyahay xisbiga soo baxaya wax ku darsada ninka aanu la soconno gaboose sallacalee nagama aha cid ku dila kow nagama aha qabiil ku dila nagama aha qabiil ku jajabiya dad baa yidhaahda siciid baana kala jebinaya idin kala jebin maayo anugu dad baa yidhaahda waana lagu soo duulay idinkumaanaan soo duulay dad baa yidhaahdaa
salla calee naloomala rabo kursiga waanu idinla rabnaa kursiga laakiinse waxa weeye doorashada waanu idinla leenay gacanta waanu idinla leenay salla calee sow maaha cid gaari miyay dhisi kartaa madaxweyne soo somaliland ma wada dhisayso anagu dadkaasuun baanu ka mid nahay دكتور محمد عبد قبوسي قدوميها ورسياسدتك برواقو أيها شعب كمقالة برعو وقا مهد عليي سودوينتا مقاله إلو سميي إلهي وحن كبر يا كوي قلوب تودو برواقا نوتا الله إنو نغدقو كوي اسكو قلبي الله إنو نغدقو كوان لك رقايبين الله إنو نغدقو كوي اسجعل الله إنو نغدقو شوشك يا شاشك الله نغسارو ما أنت تقدر برعو وامد وحنا ينبلغ قالنا أنكم إن من مدينة حوشنو إن من مدينة حوشنو إن عدالة دين حوشنو إن وذا شركين حوشنو إنتم كي يقشن كي ماشى كبحان نبينا عليه الصلاة والسلام وحير قبيالته وقرن وهذا إذا أبوان كني وهنا وحيد بيسموا يعني قبيلة وحكلام لها ولا رجال وانا عاوي وحرجينا إن إلهي ونمديه وحرجينا نقول قبل غني بعد لذين هذا فخر بعد كثير واتلحموي إنه بعد إسكوسو شديد halkii qulubtiina la isku soo jeedin lahaa halkii qulubtiina la isku soo jeedin lahaa sidaad noo soo dhawayseen allaha idin soo dhaweeyo roob ilaahay si dhaqsa abaarta nooga jabiyo ilaahay roob raxmad fara badan allaha nasiyo shacbigu waa wanaagsan yahay siyaasiyiintii baa ka xumaaday allaha kuwa khayr badan ka dhaxdhaliyo waad aragtaan dhalinyarada shaqo la'aanta waad aragtaan caafimaadku halku marayo waad aragtaan wax badan oo khaldan indhihiinaad ku aragtaan allaha naga dhigo kuwii u kaca waa noo kacdeen milicdaad noo marteen annana milicdaan idiin marin doonaa saan guul idiin gaarsiin soo dhaweentani doctor Gaboose loogu sameeyay magaalada Burco ayaa fariin cad diraysay maanta oo tilmaamaysay hamuumta bulshadu u qabaan furista urada Absaar Farax Abdullaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco.